السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان انتو كحرن يوتيوب channel علمي افكس وانيغو علمي سيدا اتكاغا براتين يوتيوب channel كان waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo trade breakdown tradekaas oo aan maanta ka qaatay JPP USD lacagta loo yaqaano tradekaas oo aan u qaatay long so reasonka aan u qaatay anigoo soo koobaya sidaad ogtihiinba kulligiin aniga waxaan ku trade garaya market structure and liquidity so market structureka sidaad aragtaanba waa jihada you know indhihiina idin sheegaya waa uptrend suuqa wuxuu sameynaya high highs and high lows so high highs and high lows markii laga soo tago so suuqa move signature move ka kaleeto uu sameynaya waa maxay suuqa markii mar walba uu socdo high waxaan uga baahanahay inuu qaato low before intuusan kor aadin ka hor so sida halkan ka aragtaanba suuqa mar walba intuusan kor aadin ka hor wuxuu qaadanayaa low wuxuu sameynaya new low kaasoo noo noqonaya swing lowgeena si uu u sameeyo high so sweep of liquidity meeshan ka dhacay lowgan wixii liquidity yaalay iyo wixii qarashad yaalay iyo wixii lacag yaalay oo dhan ayaa waxaa lagu sameeyey induced waa la induce gareeyay and then suuqa wuxuu sameeyey high high sidoo kaleeto mar labaad waxaa dhacday build up of liquidity sweep of liquidity break of structure halkan waxaa ka banaaneed fursad waa kana markii halkan la imaado mar labaad sidii si ka qurux badan baa dhacday sidaad aragtaan haddana markii saddexaad waxaa dhacday build up of liquidity sweep of liquidity break of structure so waxaan ogaa suuqa markii inuu u socdo jihada uptrendka so fursadda keliya aan raadinaya waxay ahayd buy so intaana buy u qaadan ka hor marka waxaan sameeyey waxaan xirtay point of interest yaal so point of interest yaasha aan xirtay waxaa ka mid a order flowgan oo dhan inaan xirtay order flowgan aan ku sugaya suuqa ina midkeed gareeyo and then refinement aan ku sameeyey because of order flowgan sidaad aragtaanba aad uu u weyn yahay maadaama uu aad u weyn yahay waxaa waaye ilama qurxoonaanin inkastoo qofkii jeclaysa inuu ku trade gareeyo ku trade gareyn karo aniga balse waxaan ka jeclahay mararka qaarna aan refinement ku sameeyo so waxaan ku refine gareeyey sidaad aragtaanba candle nadiif ah oo momentum kasoo gala meeshaan ugama jeeday aanan ahayn kan because of sidaad aragtaanba candlekan highgiisa ilaa candlekan kaleeto inta udhexeysa waxaa loo yaqaanaa fair value gap ama waxaa loo yaqaanaa imbalance so waxaan sugaya suuqa inuu soo laabto oo imbalancegaas balanced u ka dhigo and then oo naga siiyo fursad sidaad aragtaanba guys so fair value gap waxaan loo yaqaano iskama shaqeeyo waxaad u baahantay confirmation inaad adoo indha xiran aad iska gasho qof aan kula talinaya malahan markii la taabto ama lasoo guda galo fair value gapkaas suuqa sida uu u shaqeynayo ama sida uu isku bedel jihadiisa inaad aragtaa loo baahan yahay lower time frame markaan aadna arki doontaa wax meeshan ka dhacay but hadda conceptiga guudaan rabaa inaan ku fahansiiyo higher time frameka waxaa dhacday fair value gapki aan xiranay ina mitigationa lagu sameeyo and then oo ka yimaada reaction beautiful reaction taasoo sameysay break of structure ama change of character sidaad u taqaanidba suuqa marka jihadiis hore ayuu hore dib u qabsaday inta uusan jihada qabsan ka horna wax meeshan kasoo dhaco kaleeta mar kale meeshan ka dhacay sidaad aragtaanba lowgan ayaa waxaa lagu sameeyey sweep induced and then waxaa dhacay break of structure so taas ayaa waxay caddaysa marka suuqa inuu u socdo jihadii kore let's go marka intaas waxaan rajeynaya inaan isla fahanay suuq waxaan marka ugu horeysa aan soo galay waxaan ogaaday jihada uu suuq u socdo taasoo ah uptrend waxaan ogaaday suuqa sweep of liquidity mar walba uu sameeyo inuu high high sameynayo so waxaan sugay ilaa swepka lugtan sameysay oo highgan sameysay loo soo laabto imbalancyada la abuuray oo kaleeto ama POIskeeda mitigation mid kamid lagu sameeyo sida halkan ka aragtaanba point of interestgeena ama fair value gapkeena ayaa waxaa lagu sameeyey mitigation and then reaction ayaa ka imaada so that reaction haddii la imaado 15 minute time frame waxaad arkaysaa si nadiif inaad u arkaysid oo kana mitigationki markii lagu sameeyo point waxaa la yidhahdaa fair value gapkeena ama POI-geena waxaa dhacday change of character which is beautiful momentumka waa aad u aragtaan sooma inuu aad u qurux badan yahay so mar walba lugta sameysay break structureka koowaad aaminin mar walba sug and then waan sugnay sida halkan ka aragtaanba halkan waxaa ka jiro waxaa loo yaqaano fair value gap kaleeto oo yar oo ka dhex abuurma keeni weynaa so point of interest hadda asaan oo ah marka waxaan sugnay ilaa lasoo laabto sidaad halkan ka aragtaanba markaan inta waad ka trade gareyn kartay inta trade yara ku jira lakin it didn't work out as you guys can see it because of adima ogid in la jibin doono iyo in kaleeto waad sugaysaa so markii la jibiyey waxaan sugay in meeshan lagu soo laabto kadib inta fursad ka raadisid inta sidaad aragtidba guys sidaad aragtaanba markii la imaaday wax reaction laguma siinin suuqa straight out of oo ka dhex baxay
point of interest aan xiranay oo dhan. So waxaa dhacday marka in la imaado extreme point of interest keena ama fair value gap keena oo hoos jiray. xilliga la imaanaya marka Asian session waa xilliga ma trade garaynayno. So London session markuu saas u furmay suuqa waxaan sugaya marka in uu war cad isiiyo. And then waxaa dhacday in la sameeyo swap of liquidity and breakup structure yar. weliba breakup structure kan waxaa ka weyn mid kaleeto meeshan ku jira jiro. As you guys can see it. Weak why but you know 5 minute time frame markaad joogtid waxaad arkaysaa body close yahay, but it's okay. muhiimaddu waa jihada guud ee suuqa inaad la socotid. dhanka loo sameynayo swap of liquidity, buy side liquidity in la qaadanayana waa muhiim. labadaas haddaad isku heshid probability-gaaga boqolkiiba waxaa waaye 60 waad fiicantay ilaa boqolkiiba 70. balkan muhiimaddu ugu weynaan waxay tahay probability. So waxaa dhacda guys in swap of liquidity-gan la sameeyey. swap of liquidity-ga marka la sameeyey, breakup structure-kan la sameeyey ayaan halkan ka galay. stop loss waxaan ka dhigay below this low si aan waxoogaa protected u sameeyo. inkastoo ay qurux badan inaasaan sameeyo laakiin maanan sameynin. waxaa dhacda guys in tradekii oo halkaas inooga furmo wax yaroo drawdown aan soo galay, kadib tradekii kor ayuu noo aaday. sidaad aragtaanba waa London session xilligan. London session soo suuqa markii oo kor aaday wuxuu sii jibiyey extreme maxaa la lahaa isheeg highs waaweyn ah ayuu noo sii jibiyey, taasoo noo sii caddaynaysa jihadiina suuqa kor sii ahaan doonto New York session markii la gaaro. So New York session suuqa mar labaad wuxuu sameeyay retracement intuu kusoo laabtay sida halkan ka aragtaanba guys. order flow-gan ay dib ugu soo laabtay. This is our last order flow before the buy. mitigation ayuu mar labaad sameeyey kadibna kor ayuu aaday. So sidaas ayaa waxaa ku dhacday inaan ku qabano 5%, weliba aad u qurux badan. sanadkan sanad si aad u qurux badan ugu bilowda waaye alxamdulillah. waxaan rabaa inaan idin tusiyo marka before intaan tradekan qaadanin ka hor. This is the before saakay markii ay ahayd 5 saac iyo bar oo subaxnimo, weliba London session markaan surkan qaadayo. As you guys can see it's live chats ka waayo. ayaan surkan qaado waxaan u diray qaar ka mid ah asxaabteydii dadkii idhow kaleeto ayaan u diray si ay uga faa'iidaystaan. waxaan ugu diray dhankaas iyo Telegramka. intii ka faa'iidaystay waan u hambaliyana, intaan ka faa'iidaysanin waxaan leeyahay is aragtay dambe oo xiiso leh. hadda kadib waxaa waaye baska in idinka harnaan rajeynaya. marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddii uusan YouTube channelka subscribe ku ahayn fadlan subscribe leh. wabillahi tawfiiq.